xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa waxaa maanta Madison College ka bilowday tartan aqooneed u dhaxeeya ardada dhigata college-ka. tartan aqooneedkan ayaa waxa uu dhex mari doonaa dhammaan ardada wax ka barata Madison College heerarkooda kala duwan, ayadoona la filayo inay soo bandhigaan aqoontii la soo baray. agaasimaha guud ee Madison College Ustaad Daawud Axmed oo tartanka fura ayaa waxa uu yiri competition is very important. We are going to learn new things. We are going to learn different types of the aspects of grammar, and it will help you a lot. tartanka marka waxa ku xigtanaysa waxa ku fahmaysa opposite ku baranay dictation si wax loo baray sidoo kale kalsooniga meesha kalsoonida sidoo kale baadin la dhashay. haddaba tartankani ayaa waxaa ka qayb geli doona ardada dhigata luqadda Ingiriiska, Kiswahiliga, Jarmalka iyo kuwa barta luqadda Faransiiska. Abdullaah Dayax, CMV TV, Nairobi.